قاطع كل شي كارك قاطع كارك عود بحنت قاطع waxaan ku faraxsanahay saaka in la kala dirayo dhammaan sanaaduuqdii iyadoo ku beegan tahay bris subax inay bilaabanto kaar qaybintii kana bilaabato 3 gobol annagu gaar ahaan waxaan ku suganay gobolka saaxil dhammaan goobaha gobolka saaxil uu ku koobay oo dhan way ka bilaabmaysaa subaxa waxaan ku wacyi gelinaynaa dhammaan bulshada inay qaataan kaararka muddada ay socon doontaana waa 3 cisho qofkii 3 cisho soo haleeli waaya waxa la siin doonaa 7 cisho oo 2 degmo kaliya degmada Sheekh iyo degmada Berbera labada degmo ka socon doonta haduu alla idmo 7 cisho dambe laakiin 3 cisho qof waliba chance ma garanaysaa uu helay inuu dhammaan goobtu ka qaatay oo ka qaata kaararka waxaan halkan uga baaqayaa bulshooyinka in qof waliba kaarkiisa soo doonto dhalinyarada aqoon-yahanada ee jaamacadahana waxaan ugu baaqayaa inaanay siin qof aan kaarka lahayn inaan qaadan markuu qofkii kaarka lahaa u yimaado inay siiyaan haddaan u iman inay hayaan sidii lagu soo tababaray marka waxaan leeyahay qofna qaadan maayo kaar aanu xaq u lahayn ugu dambeyntii waxaan leeyahay bulshada gobolka saaxil oo aad isu diiwaan gelisay dhammaan kaararka qaata si ay u soo saartaan musharaxiintiina ka jira degmooyinka maanta waxaan joognaa gobolka saaxil caasimadda Berbera magaalo madaxda gobolka saaxil waxa farxad weyn ah inay bilaabatay hawshii qaybinta kaararku oo maanta loo kala wada diray gobolka saaxil dhammaan goobihii doorashooyinka hore loogu talagalay loo kala diray iyadoo laba degmaa Sheekh iyo Berbera oo ay maanta dhamaystireen komishanka qaranku halkii la jooga waxa weeyaan waxaan aad iyo aad ku boorinayaa shacabka meel kasta joogaan gaar ahaan musharaxiinta ugu jira dadaalka golaha deegaanka iyo wakiilada inay iska sharaxaan inay dadkoodii goobihii markii hore ay keeneen sidii u keeneen dadaalkii hore muujiyeen ku soo guran dadka keenaan inaanay ka cajisin iyadoo goobaha dhammaan heegan ay ugu yihiin komishanadii degmooyinka iyo goobaha ee qaranku u soo xulay ee markii horena 3 xisbi iyo komishanka qarankuba ay wada ansixiyeen anagoo axsaabta hortayada keeneen oo kolkay kalsooni nooga helan ay magacaabeen aad iyo aad baan taana ilaahay ugu mahadnaqayaa waxaan dadka ka rajaynayaa inay heegan u noqdaan inay u soo kacaan inay kaararka qaataan in kii hore ka maqnaaday muddada dheer kaarkiisa la hayay maanta waqti uu ka faa'iideysto waayo dhaqaale fara badan baa ku baxa waqti fara badan baa ku baxa habeen iyo maalinba komishanka u soo jeedeen marka waxa loo ka codsanaynaa shacabka reer Soomaaliland iyo dadka musharaxiinta wakiilada iyo golaha deegaankii tacabka galay kaararkaasi inaanay khasaarin mar labaad inay goob kastaba dadkii ay imaka keeneen cusub ay diiwaan galiyeen ee da'doodii gaadhay loogu talagalay inay u codeeyaan iyo xaq u siinaya dastuurku inay kaararkeedu dadkii soo xaadiriyaan oo goob walba keenaan si ay kaarkooda u qaataan saaka oo ay bishu tahay 10kii bisha Maarch ee 2021 waxaan joognaa magaalada Berbera waxa maanta ilaahay mahadiisa ah in ay noo suurto gashay in dhammaan 9kii goobood ee gobolka saaxil aynu u kala dirno shaqaalihii iyo ciidankii iyo baabuurtii qaadayay kaararkii codbixinta oo la gaarsiin doono goobihii dadku iska diiwaan geliyeen diiwaangelintii ugu dambeysay ee 2020 iyo kaararkii ka soo noqday diiwaangelintii 2016 kaararkaas oo dhan ayaa la qaybin doonaa oo laga qaybin doonaa 9 goobood oo gobolka saaxil ah labada degmo ee degmada Berbera iyo degmada Sheekh muddo 3 cisho oo bilaabmaysa berri Khamiis 11 Maarch waxayna dhammaan doontaa Sabti 13 Maarch hadii la haydo marka
marka ay 9ka goobood saddexda cisho ay ka soo idlaato kaar qaybintu kaarka la qaadan waaye ee goobaha ku soo hadha waxa la isku keeni doonaa degmooyinka ay hoos imanayaan goobahaasi gobolka saaxil degmada berbera wixii goobaha degmada berbera hoos imaada waxa la isku keeni doonaa magaalada berbera dhexdeeda goobo loo asteeyay marka lagu sii qaybin doonaa muddo 7 cisho sidoo kale degmada sheekh goobaha hoos imaada waxa la isku keeni doonaa magaalada sheekh halkaasana lagu sii qaybin doonaa muddo 7 cisho ah oo ka bilaabmaysa haddii aaba idmo 12 bisha Maarch oo ah maalinta Axadda haddii la xidha waxaan ku boorinaynaa shacabka reer saaxil ama guud ahaan saddexda gobol ee maanta ay ka bilaabantay kaar qaybintu bari ka bilaabmayso in si wanaagsan ay ugu taxallujiyaan in diiwaangelintii ay sameeyeen ee ay ku waqtiga badan iyo dadaalka badan geliyeen in maxsuulkii ka soo baxay inay markan ay qaataan oo kaararkooda ay qaataan oo ay ugu tagaan meelihii u asteysnaa ama goobihii ay markii hore iska diiwaangeliyeen waxaan rajaynaynaa sidoo kale in qof walba uu ku dadaalo inuu kaarkiisa u qaato kaarkiisa uu xaq u leeyahay inuu qaato qof kale kaar uma qaadi karo qofkii iska lahaa un baa qaadan kara qofna qof kale kaar uma qaadi karo marka waxaan doonaynaa si aanay u dhicin hadhow kaarar baa cid kale oo aanay lahayn qaateen iyo waxaan rajaynaynaa in aan la isku dayin marnaba waxaa jira berigii dhaweyd la sheegayay in qolooyinkan murashaxiinta qaar ka midii ay shahaadooyinkii dadka la siiyey markay isdiiwaangeliyeen ay urursadeen isla markaana ay qaarkood ka fikirayaan in ay kaadhadhka shahaadooyinkaasi leeyihiin ay iyagu u qaadaan ama ay si kale u helaan taasi maaha mid marnaba suurtogelaysa qofkii iska lahaa oo yimaado unbaa la siinaya hadduu qofkaasi iman waayo kaadhkaasi wuxuu ku soo laaban doonaa ama uu ku soo noqon doonaa xarunta haddii muddada 3 cisho hore iyo 7 cisho ee extension-kaba uu qofku qaadan waayo waxaan rajaynayaa in insha Allah ilaahay si nabadgelyo inoogu dhameeyo hawshan oo runtii iyadoo kamid ah dhamaadkii diiwaangelinta kaarka la qaatana wuxuu noqon doonaa kuwa haddii eeba idmo aynu ku codeyn doono doorashada soo socota berigii dhaweed kaar bedelkii goob bedelka la sameeyay dadkii ama goobta bedeshay ama kaarka loo bedelay ee la siiyay shahaadada certificate-ka la siiyay dadkaasi kaar uma baahna shahaadada la siiyay bay la imanayaan maalinta doorashada oo ay ku codeynayaan dadkaasi kaar uma baahna waa dadkii ama kaarka loo bedelay oo kaarku ka lumay ama goobta loo bedelay dadkaasi shahaadadii la siiyay bay la iman doonaan haddii ilaahay dhahdo maalinta codeynta uma baahna inay kaad u yimaadaan bulshoy kaarka qaato dilmantii adoo ka baydhin bartiyo goobtii tago bulshoy kaarka qaato kaarka codbixinta qaato